السلام عليكم kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena YouTube-ka ee Somali Press kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada wararka Somali Press xilligan uu idin hayo waxa kamida madaxweyne Farmaajo oo lacag badan ku wareejiyay taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya General Odoba Yusuf Raage si uu ugu qaybiyo ciidamada qaranka kulan gaar ah oo dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo taliya Odoba ayaan xogo dheeraad idin kaga haya madaxweyne Farmaajo oo ka yaabiyay beesha caalamka kadib markii ay arkeen malaayiinta shacab ee taageersan madaxweyne Farmaajo sidee ayuu madaxweyne Farmaajo ku kasbaday qulubta shacabka Soomaaliyeed warbixin xasaasi ah ayaan idin kaga hayaa qodobada kale ee wararka Somali Press aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Xasan Sheekh Maxamuud oo ku fashilmay hogaaminta dalka tan iyo markii uu xilka la wareegay beesha uu ka dhashay Xasan Sheekh ayaa diidan gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan oo uu dhawaan magacaabay Xasan Sheekh Maxamuud maxaa ka soo baxay kulankii beesha Galmaax Yoonis iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay yeesheen war ku saabsan ayaa daawan doontaan qodobadaasi oo dhan ayaan warkeena ku faahfaahin doonaa waa habeen Isniina Talaado ayaa soo galaysa taariikhda waxay ku beegan tahay 12 September 2022 waxaan ka codsanayaa daawade inaad subscribe saarto YouTube-keena kadibna aad furato gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno aad u hesho sidoo kale like saar muuqaalka si ay u daawadaan saaxiibo sidaada oo kale u wanaagsan u diyaar garoow faahfaahinta wararkaasi aan ku bilaabo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xogo la helayo waxay sheegayaan in uu lacago kumanaan dollar ah ku wareejiyay taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya General Odoba Yusuf Raage madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in mar walba ay ka go'an tahay in uu difaaco dalka iyo qaranka Soomaaliya loona baahan yahay in la garab istaago ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo har iyo habeen u taagan sidii ay u difaaci lahaayeen dalkeena Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan gaar ah gurigiisa kula qaatay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odoba Yusuf Raage waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ugu horeyso dhiirigelinta ciidanka iyo sida ay muhiim u tahay in Soomaaliya ay la wareegto amnigeeda taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odoba Yusuf Raage ayaa madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u xiiseen madaxweyne Farmaajo isla markaana ay codsadeen in mar uu ku booqdo xarumahooda iyo furmaha dagaalka intaasi kadib xubno kulanka joogay waxay sheegeen in madaxweynihii sagaalaad ee dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu lacago kumanaan dollar ah ugu dhiibay taliya Odoba ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee difaacaya dalkeena wuxuuna kula dardaarmay inay si laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan xoreynta dalka madaxweyne Farmaajo ayaa taliya Odoba salaan ugu dhiibay ciidamada qaranka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa lagu amaanaa in uu yahay wadani dhab ah oo jecel dalkiisa hooyo sidoo kale waxay dadku ku amaanaan in uu yahay shakhsi tanaasul badan oo mar walba dantiisa ka hormariya tan qaranka Soomaaliya Farmaajo ayaa ka mid ah siyaasiyiinta ugu shacbiyada badan madaxda Soomaalida waxaana uu kasbaday qulubta shacabka Soomaaliyeed ciidamada qaranka ayaa niyad jabay tan iyo markii doorashada madaxweynaha looga guuleystay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa sidoo kale aad u niyad jabay shacabka Soomaaliyeed waayahay waxa daawanaysaan qeybaha hore ee wararka Somali Press hadaad nagu cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto oo aad ka mid noqoto saaxiibada halkan ku xiran si macluumaadka iyo wararka aan halkan soo dhigno aad u hesho wararkeena kale haddaan eegno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku fashilmay hogaaminta dalka isaga oo ku jahwareersan sidii uu u sii wadi lahaa xilkan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tan iyo markii la doortay waxa uu dhexda kaga jira fadeexado iyo sidoo kale dhibaatooyin fara badan oo ka haysta maamulka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tan iyo markii uu magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir waxa uu la kulmayay caqabado hor leh oo ku aadan sidii ay u dhaqangeli lahayd digreetada uu soo saaray waxa madaxweynaha durba ka hor yimid beesha uu ka dhashay ee Abgaal kuwaas oo diidan xilka uu u magacaabay Yusuf Madaali Xasan Sheekh Maxamuud
ayaa villa Soomaaliya waxa uu kula kulmay siyaasiyiinta, odayaasha iyo xildhibaanada beesha Galmaax Yunis oo cabasho ka ahayd habka uu u maareeyay magacaabista gudoomiyaha cusub. beesha Galmaax Yunis ayaa madaxweynaha horey ugu eedeysay inuu kaga baxay ballan uu ka qaaday oo ahayd inuu siin doono xilka duqa Muqdisho, kaasi oo markii dambe uu u magacaabay Yuusuf Madaale oo ka soo jeeda beesha Daa'uud. Galmaax Yunis iyo Daa'uud ayaa labaduba waxay ka wada tirsan yihiin beesha Wacbuudhan Abgaal. kulankii villa Soomaaliya ka dhacay ayaa xubno ka qayb galay waxay sheegeen in Xasan Sheekh uu ka garaabay arrintan isla markaana uu raaligelin buuxda siiyey, isaga oo ballan qaaday inuu si kale u xalin doono. xubnaha beesha Galmaax ee kulanka ka qayb galay ayaa madaxweynaha u gudbiyey liis xilal ah oo ay doonayaan in markaasi loo magacaabo haddii aanu xilka gudoomiyaha ka soo celin karin Yuusuf Madaale. madaxweynaha ayaa la sheegay inuu mar kale ballan qaaday inuu arrintan sixi doono isla markaana xilal kale ugu xuquuq gudi doono beesha Galmaax Yunis, inkastoo qaar ka mid a mas-uuliyiinta beesha ay shaki geliyeen sababo la xiriira inuu horay uga baxay balamo kale oo uu horay uga qaaday. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu eedeeyaa ama la tilmaamaa inuusan ku fiicnayn balanta isla markaana beentiisa ay aad u badan tahay. ma cadda sababta Xasan Sheekh uu ballanka baxa ugu sameeyey beeshaasi, hayeeshee waxaa la rumaysan yahay inuu cadaadis kaga yimid kooxdiisa UPD iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Xasan Sheekh iyo siyaasiyiinta Galmaax ayaa ku ballamay kulan labaad oo lagu dhameeyo xiisadda ka taagan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ugu dambeyn haddaan eegno halkaasi ayaan daawadayaal kusoo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka ee Somali Barees. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeenna. waxaan kaa codsanayaa daawada inaad nagu soo biirto oo aad subscribe saarto kanaalkeenna, kadibna aad furato gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno aad u hesho. intaa ku kulmi doono wararkeena soo socda, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.